dhacdo kale maalin jumco ah ayaa masjidka sida cumar soo khudba akhrinayo wuxuu soo rogay arrin ah in gabdhuhu ama haweenku ay raqiisiyaan meherka si guurka u bato uu qoondiyey marka wuxuu intaas lagama badin karo haween ayaa istaagtay haweeney gabar istaagtay waxay tidhi akhda'ta yaa cumar sida cumar waa gaftay tidhi haye ilaahay sooma وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا معناه هو مدود أسيسان قنطار ومال فرق بدن وآتيتم إحداهن قنطارا إلى سومدهن marka meherka gabadha iska leh inta tashay karta marka waxa aad aqoonaysid oo aad jaangoonaysid ma ahan beetri marka waa gaftay sida Umar haweenays oo kamid ah caamatu naas qaanuunka meherka diiday sida Umar xaqii miskala weynaan haweeney hal xira ma dhihin hal jeelade ma dhihin oo hal karbash ma dhihin bal uu aqoonsaday naskii qaatay muxuu yiri asaabat imra'a wa akhda Umar haweeney ayaa asiibtay oo haweeneydu way asiibtay sida Umar uu gafooy maanta laga bilaabo sidaas oo ha ahaado oo gabadha xaq u leh markii ay sheeganayso oo fiirso taxdiidii meherkii oo iska dhaaf markii aad quraanka loo keenay Allahu akbar dhacdadan ku soo gabagabeynaa insha Allah taala sida Umar waxaabii taariikh ka qortay dilada hal sheego hal video iyo hal muuqaal iyo 10 muuqaal iyo 100 muuqaal xataa ma soo koobi karo sida Umar inta islaamku uu yahay ka horba hadii la yiraahdo laga sheekeeyo sida Umar wuxuu arkay maalmaha kamid ah xilligii uu madaxweynaha islaamka ahaa ayaa waxa loo keenay kunuuzu kisra ya kaydkiisii taajkiisii jajaminkiisii adduunkiisii ayaa loo keenay sida Umar uu yaabay wuxuu arkay waxaana jawhar ah waxaana dahab ah ayaa la soo xambaaray halkaas laga keenay wadan aan dhaweyn Madiina oo caasimada muslimiin ah loogu keenay sida Umar uu yaabay soo gadgadinayo laan ku gadgadinayo la yaabay wuxuu leeyahay subhanallah ilaa nazahan ilaa rahmaan kan nazahan wallah inna alladhi adda ilayna hada la amin ninkii waxaa noo keenay ee soo qaad alaabtan inta soo ka soo furtay gaalkaas noo keenay والله كاس امين ويوري ونين امين معناها لما ليحن markay qaatay muslimiinta suuqa ma geysan meena gadan sida Umar farta laga soo saaray qabsaal yiri waa kana madaxweynahaas xiligaas ugu weyn adduunka keedkiisa iyo alaabtiisa iyo taajkiisa iyo qasrigiisa wixii ku jira waa kuwana jawhartiisa tajiba ilaalka oo mahadceli muxuu yiri ilaahay boo xumaana ka nazaha subhanallah walladhi adda ilayna hada la amin wayri ninkii waxa noo keenay amaanada soo guto yiri kaas amin wayri faqala sidina ali فقال سيدنا علي رضي الله عنه سيد علي أيا كيري سيد عمر وحيري يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانتهم أمير المؤمنين تو أمانة ميا الله يا بنتهي ولا عجبتي لقد عففت ودورستي أذيب دورستي فعفوا أجنبي دورستي مارك أمانة أجدوري هذا يا حقه إسكيلاري هذا يا دورستي أجنبي دورستي مركز اللهم صل على سيدنا محمد ولو رتعت لرتعوا داخل هنا ومسلمين حقوا iska boobi lahayd oo la luusha qaada lahayd ya ama waxaad maanta u yaqaan musuq aad ku kici lahayd ayna way daaqi lahayn kuma keen lahayn hay'ati kata adiga doorsaday ayna way doorsadeen cibrada marka maanta mushkilada maanta na haysato marka dadka ma ahanin noloshan ma ahanin walakin laysa fil qawmi mithla Umar laakiin sida Umar oo kale maanta ma joogo sida Umar 10 sano xukuumay muslimiinta markaas wuxuu riday qusuur madax 1000 sano wadanka maamulaysa adduunkiisati ayuu ka takhalus waa 1000 sano ka badan ayuu ka takhalus 10 sano kaliya xilka haye futuuxaadkiisii iyo furayaashiisii waxay gaareen dowladda islaamka waxay gaartay Ciraaq ayaa la furtay Sham Misra Libiya Faris Khurasan Anadol ayaa la furtay intaas oo wadan ayaa la furtay imbaradooridii Farisiyada dhulka gashay oo ka akaaday xukunkoodiina taaka kama tagin ilaa sida Umar xukumina Iran iyo dhulka dhan dartaan فارس لو يقول جري سيد عمر الله وريه قبل قلت هاي إمبراطورية الرومانية بيزنطية سيد عمر صدح ملات الكودي الله مر الله وريه الله أكبر ممالك أخرى أوكله عدالتي وكفي دي كدي ماركة دي بقرة حلكة هاي ظلمي كوكا عين سيد عمر عدالتك سوري الله أكبر دولة الإسلام كوي أساسات إلا يو دول فرق بدن لو وريه أمة المسلمين تنوحوا أساس تاريخ عصب وتاريخ الهجري أو الكفتومة تاريخها كله تاريخنا بأسكال الذين تاريخ هجرية وما تمر تكون أفرتني نمريس الله أكبر ولم يكن قبله تاريخ خاص للمسلمين ورتسنا تاريخ خاصة أما قارئة
muslimiinta maanay lahayn. haddaba muslimiinta waxay ku mu'arikhiinta aan dhaho dhammaan muslim gaalba mu'arikhiinta waxay ku tilmaamaan sayid cumar min acdami qaadati taariikh, hogaamiyaalkii taariikhda soo maray kuwa ugu waaweyn inuu ku jiro ayay ku tilmaameen. saas oo tahana qalbigiisa ma gelin wax kada ah, tawaaduc buu ku sifoobay isagoo muslimiinta meesha ugu sarreysa joogo oo amiirmuslimiin amiirmuminiin isagoo ah, tawaaduciisa dhulku iska seexanay, wuxuu iska seexanaya dirinta, wuxuu iska cunaya cuntada muslimiinta cunaan, cuntada muslimiinta kuwooda masaakiinta cuntada cunaan ayuu iska cunay. cadaaladda laga sheegay cid lagama sheegin ambiyada gadaashood. allahu akbar. khubsiga kibista oo yaabiska ah ayuu iska cunay, dirintaas oo ku seexanay, dharka iska baaliyoona oo iska qaadanay. haadihi madrasatu الnabiyi salى اllahu alayh wasalam, taas waa madrasadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. rabat jiilan, waxay barbaarisay jiil yakhaafu اllaha wayuraqiba fi kuli afcaalihi, oo ilaahay ka cabsanayo dhammaan afcaashiisana halkaas ku ilaan ka xifdinayo. maanta qofkii xil yar loo dhiibo iska dhaaf, qof madaxweyne loo magacaabe, qofkii wasaare loo magacaabo ama gudoomiye baarlamaan ama wasiir laga iska dhaafe, ninkii gudoomiye waaxid maanta loo magacaabo isla markaasuu kibir bilaabaya. ninka taqaani ma ahanba, xaaladii uu ku jiro waa iska bedelaya, markaasuu kibir bilaabaya. haddaba sayid cumar bin khadaab dayasho waa noogu filan yahay, kocbilqaasi way noogu filan tahay. maqaalkan waxaan usoo gudinaynaa in madaxda maantana xukumayso ama islaamka xukumayso ee sayid cumar ishor keenaan, ku daydaan, qaabka u dhaqmaan. insha allahu tacaala ilaahay hana waafajiyaa leenahay. xukunka muslimiintana ilaahay ha u dhiibo umara oo xukunka dadka xukumayaan u cadaalad sameeyaan sida sayid cumar bin khadaab oo kale radi allahu taala anhu warda. maqaalkiina halkaas soo gaweynayna. wabillahi tawfiq. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu.